wiilku wuxuu dareemay in mar kasta oo qof tuulada laga waayo in aabihiis uu habeenkii guriga imaan jiray isagoo jiidaya boorso weyn. isagoo arrintaas aad ula yaaban ayuu wiilku mar aabihiis wax ka weydiiyey, balse aabihiis ayaa si qariib ah u soo eegay kuna amray inuu iska seexdo. si kastaba ha ahaatee, dhibcihii dhiigga ee dhulka yaalay ayaa wiilka ku sii abuuray xiiso uu qabo inuu ogaado waxa ku jira boorsada gudaheeda. markii uu arkay aabihiis oo boorsadii u jiidaya dhanka jikada ayuu si dhuumaalaysi ah uga daba tegey. marna ma uusan filayn in waxa uu arki doono ay si weyn u argagixin doonaan ilaa uu dhulka ku dhaco. markii uu aabihiis maqlay shanqarta ayuu si degdeg ah u soo baxay, wuxuuna ku amray inuu aado oo uu soo seexdo. tan iyo intii uu wiilku garaabsaday, aabihiis waxa uu ka shaqaynayay dukaan lagu iibiyo canjeerada ama rootiga la keliyey ee loo yaqaan bunska. ganacsigaasna wuxuu ahaa mid aad u guulaystay. dadku xitaa waxay uga imaanayeen gobollo fogfog si ay uga iibsadaan. qaar baa oran jiray cuntadani waxay ragga u tahay il xoog, dumarkana waxay u tahay daawo qarsoodi ah oo quruxda kordhisa. laakiin wiilku marna ma uusan fahmin waxa dhabta ah ee ku jira cuntadan oo macaamiisha ka dhigay kuwa sidan u jecel. aabihiisna marna arrintaas uma uusan sheegin. 12 sano ayaa ka soo wareegtay, wiilkuna weli wuxuu la yaabanaa sirta ka dambaysa cuntada. maalin maalmaha ka mid ah, isagoo ka faa'iidaysanaya maqnaanshaha aabihiis ayuu si dhuumaalaysi ah u cunay in yar, laakiin dhadhanka qariibka ah ayaa noqday mid adag in la liqo. markii uu arkay macaamiisha tirada badan ee aan kala goyn, xiisihiisa ayaa sii kordhay. isla markaas waxaa yimid macmiil joogto ah, wiilkuna iskuma uusan celin karin. wuxuu weydiiyey sida uu dhadhanku yahay. macmiilkii ayaa si qanacsanaan leh ugu jawaabtay inay tahay cuntadii ugu macaaneyd ee ay ebid cunto. markii uu wiilku weynaaday, aabihiis wuxuu u ogolaaday inuu ka caawiyo cajiinka, laakiin mar kasta oo la gaaro xilliga la samaynayo hilibka gudaha la gelinayo, dibadda ayaa looga saari jiray jikada. maalin kale, aabihiis ayaa guriga yimid isagoo jiidaya boorsadii weyneyd. wiilka oo markan dhiiraday ayaa xoog u riixay boorsada. ilbiriqsiga kadib, dareere cas ayaa ka soo sisay sibka boorsada. aabihiis waxba ma dhihin, wuxuuna isku dayay inuu boorsada jiito, laakiin markan wiilku kama uusan harin. si lama filaan ah ayuu aabihiis dhinac ugu riixay, wuxuuna isku dayay inuu furo boorsada intii uu jahwareer ku jiray. markii uu ku sigtay inuu furo, aabihiis ayaa dhulka ku riday, boorsadiina dib u xiray, kadibna si aamusnaan ah jikada u geliyey. markii uu aabihiis baxay, wiilku wuxuu taabtay dareerihii casaa ee dhulka yaalay, wuu uriyey, wuxuuna dareemay ur dhiig oo aad u xooggan. maalintii xigtay, isagoo shaqaynaya ayuu maqlay macaamiil sheekaysanaya oo leh 2 gabdhood oo kale ayaa dhowaan la waayey. wiilka ayaa markiiba xasuustay boorsadii xalay, wuxuuna si caadi ah u weydiiyey inay hayaan sawirada gabdhaha maqan. markii uu shaqada dhameeyey, wuxuu qashinka ka dhex helay dhar dhiig leh. nooca dharku wuxuu si sax ah ula mid ahaa kuwii ay xirnayd mid ka mid ah gabdhaha la leeyahay. markiiba dharkii ayuu u qaatay si uu aabihiis ula hortago, balse aabihiis ayaa ka dafay oo isla goobtii ku gubay. xitaa sidaas oo ay tahay, wiilku kama quusan inuu ogaado runta. habeenkaas si dhuumaalaysi ah ayuu aabihiis u dabagalay, wuxuuna arkay isagoo naag la faqaya isla markaana diyaarinaya qalab. isla markaas, wiilku wuxuu si kama ah ugu istaagay laan qoryo ah. shanqartii ayaa aabbaha ka nixisay, wuxuuna soo tuuray faas ku sigtay wiilka. markii uu gartay inuu wiilkiisii yahay, wuxuu naagtii ku amray inay tagto. wiilku wuxuu isku dayay inuu arko wejiga haweenayda, balse aabihiis ayaa hor istaagay. jahwareerka dhexdiisa, aabbaha ayaa si lama filaan ah xabadka u qabsaday xanuun dartiis. inkastoo wiilku shakisanaa, haddana guriga ayuu geeyey, balse markii uu daawo u doonay, aabihiis wuxuu u istaagay si caadi ah sidii inaan waxba dhicin. markii uu wiilku daawadii la soo laabtay, wuxuu arkay aabihiis oo albaabka xiranaya. dhaqankan qariibka ah ee aabihiis ayaa wiilka ku sii adkeeyey go'aankiisii ahaa inuu runta daafuro. maadaama uusan raaci karin mar dambe, wuxuu go'aansaday inuu jikada galo oo uu si qarsoodi ah kaameero ugu xiro meel aan la arki karin.